soonka ramadaan haddii la soomi waayo oo ruuxu markaa cudurdaar la'aan uu soomi waayo dembi weyn oo kabaa'ira weeye. hadduu ramadaantii ruuxu soomi waayo cudurdaar la'aan uu soomi waayo waa dembi aad iyo aad u weyn oo kabiira ah weeye, aad iyo aad u weyn. waxaana soo aroortay xadiis markaa sheegaya ruuxa markaa soonka xataa dhammaystiri waaya oo iyadoo markaa weli aan la gaadhin wakhtigii la afuri lahaa yacni iska afura inuu waxa weeye markaa ciqaab loogu goodiyey. oo waxaa laga soo wariyey saxaabiga abu umaama la yidhaahdo abi umaamata albaahili inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul baynama ana naa'imun ataanii rajulaani faakhada bidabcaya faatayaa bi jabalan wacran faqaalaa iscad faqultu innii laa utiiqu faqaalaa sanusahiluhu lak. xadiis baa soo arooray ay soo wariyeen xaakim mustadragiisa ku soo warinaayo, ibnu xibbaanna uu soo warinaayo oo saxiixiisa uu ku soo warinaayo, nasaa'ina markaa sunan kubra uu ku soo warinayo. xadiiskaana sheekh albaani uu saxiixinayo. culamo hore oo saxiixisayna waa jiraan oo iyaguna markaa yidhi xadiisku waa saxiix. xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi anigoo markaa hurdaa ayaa waxaa ii yimi laba nin baa riye igu yimi, anoo markaa hurdaa ayaa laba nin ii yimaadeen. waxay qabteen halkaa cududda ayay i qabteen labadii nin. markaasay waxay i geeyeen buur markaa waxaa weeye ay adag tahay, sida loo koraaba ay adag tahay. markaasay igu yidhahdeen kor. markaasaan ku idhi ma awoodi karaayo. waxay yidhahdeen waa kuu fudaydinanaa kor. dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa koray ilaa markaa buurta dhaladeeda aanu baxay. waxaaba igu kediyey yacni markaa codad markaa daran oo markaa ayaa igu kediyey. markaasaan idhi codadkani waa maxay? markaasay waxay igu yidhaha haada cuwaa'u ahli nnaar, waa qayladii ahlunaarka iyo cabaadkoodii weeye. dabeedna markaa haddana waa lay kaxeeyey, waxaa lay geeyey oo markaana ay igu kediyey oo bimacnaa si kedisa aan u arkay dad markaa waxaa weeye la soo laalaadiyey oo markaa waxaa weeye halkaas inta markaa waxaa weeye addimada yacni kor loo taagay ayaa halkaa markaa waxaa boqnaha markaa laga sudhay, waxbaa laga sudhay. markaasaa sidaa loo soo laalaadiyey. qawlalladoodana waa la dillaaciyey. markaasaa qawlal kasta inta la dillaaciyey ayaa dhiiggu sidaa uga da'aya, dhiig baa sidaa uga da'aya. markaasaan waxaan idhi buu yidhi kuwani maxay ahaayeen? nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam waxay igu jawaabeen aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim, waa kuwa afuraaya intaan soonkoodu goortii markaa ay xalaal noqonayso inay afuraan aynay gaadhin. bimacnaa wakhtiga afuraadda intaynay gaadhin dadka iska afuraya wax iska cunaya iyagoo qorraxdii aan hubsan inay dhacday, kuwaas weeyaan kuwan waxa weeye markaa qawlallada markaa dhiiggu ka da'aya, qawlallada la jeexay, haddana waxa weeye markaa sidaana loo soo laalaadiyey. xadiiskaas wuxuu sheegayaa waciid daran buu sheegaya. haddii waxa weeye ruux daqaa'iq ka hor ama daqiiqad ka hor ama nus daqiiqo ka hor wakhtigu markaa afuri lahaa yacni afuray oo wax cunay sidaa loo ciqaabayo, bal maxaa loo malaynayaa qofka aan markaa soominba oo asaalatan markaa soonkiiba iska daayey, cudurdaar la'aan isaga daayey? waxaad garanaysaa ciqaabtiisu inay ka sii weynto, ciqaabtiisu inay ka sii weyntaad garanaysa. alimaamu dahabi wuxuu odhanayaa mu'miniinta agtooda waxaa muqararoo sugan ruuxa markaa soonka ramadaan ka taga xanuun la'aan iyo waxa weeye markaa wax cudurdaara la'aanteed uga taga inuu ka shar badan yahay ka sinaysanaya iyo ka cashuurta guraya iyo ka khamriga daa'imay ee joogteeyee caadaystay, intaba inuu ka shar badan yahay baa mu'miniinta agtooda markaa muqararoo sugan. bal yashukuuna fii islaamihi wayadunnuuna bihi azandaqata waalinxyaal. waxaabay ka shakinayaan dadka muslimiinta ahi, waxay ka shakinayaanba islaamnimadiis ruuxa markaa cudurdaarlaan isaga afuraya, waxayna ku malaynayaan yacni markaa inuu diinta ka baxay ayaabay markaa ku malaynayaanoo mala xun bay ka qaadanayaan. waxay ku tusinaysaa markaa soonka ramadaan cudurdaarlaan in laysaga afuro laysaga cunaa inay ka mid tahay dunuubta kabaa'irtae aadka u waaweyn.